shan reeso lix reeso todoba sideed sagaal inaad soo bandhigto maaha waxa fiican heesahaaga inay ahaadaano kuwa xal leh dadkuna ay ahaadaan kuwa dhageysta mar walba laakiin heesaaga day noqdaan kuwa yaacitaan ku socdo macnaha xawaarasta oo markaas daba joog deeyeen hadda wuxuu noqon socdaal team hadii aan nahay in aan leenahay production aan leenahay in aan anaga aan duubno aroosyada in aan duubno in aan duubno seminaarada in aan duubno in aan anaga macnaha aan leenahay macnaha wax soo saar in aan sameeyno xayisiinad qaasatan ka socdaal ahaan ayaa ku sameynaya xayisiin hadii aad u baahan tahay hadii aad u baahan tahay aroos waa lagu duubaa hadii aad u baahan tahay seminar waa lagu duubaa hadii aad rabto u baahan tahay zawiraad nooca rabto waa laga qaadaa lambar ayaan hoos idinkugu soo qorayaa lambarkaas aad nagala soo xiriiraysiin studioha waxa joogo halista production waa halista photograph waa wiil u carbiyeysan halista photograph waa wiil gacantiisu ay fadhido hadda muuqaalkan aad daawanayso waa nin gacantiisu ku fadhiisiyay aanada youtube soo fariistay ilaa hadirtan hadii la duubayo muuqaal heest iyo hadii la duubayo muuqaal caadi waa ninka iga duubo waa ninka aroosyada magaalada Muqdisho kuwada ugu waaweyn duubo waa ninka seminaarada magaalada Muqdisho ugu waaweyn laga wacdo oo duubo waa hadii aad shalay u baahneed waxyaabo noocaas waan ka qabtireena waliba aniga oo socdaal ee mas'uuliyadiisa ee saaranta macnaha hadii aad u baahato waxyaabo noocaas lambarkaas aan kugu soo qorayaa teeda kale waxa jiro Facebook page oo aan leenahay oo halista photograph la yiraahdo page kaas booqda wixii macluumaadana xitaa page kaas waad ka heli kartiin ama santii kulantii waxaan oo wanaagsan ee ahaantiin waa meel kasta aad iga daawanaysaan si kasta aad maqlaysaan si kasta oo guuxa wararkayga oo idin soo gaarayo waa anigoo ah socdaal super socdaal soo dhawaada markood mar labaad mar saddexaad caawa way ka duwan tahay caawooyinkii hore la soo dhaafay waxay ahaayeen caawooyin annaga nagu qiimo badan nagu qaaliya waqti annaga aan xuseyno caawa waxay ku beegan tahay caawo aan ka hadli doono waxyaabo xasaasiya kuwaas oo ah kuwa aniga isoo wajaheen ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka labaad halkan caawa waxaan u soo fariistay laba fariin inaan uga diro ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaasatan halkan waxaan u soo fariistay inaan u diro laba fariin dadyo kala duwan dadyogaas oo ah kunol magaalada Beerdhaba iyo dadyo kunol magaalada Galmudug waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaan leeyahay reer Beerdhabo sida qiimaha iyo sharafka iyo sumcadda iyo karaamada leh oo aad codsigiinu aad igu soo gudbiseen waan aqbalay codsigiina midda labaad waxaan leeyahay reer Galmudug idinkuna waad mahadsantihiin sida quruxda badan leh oo aad codsigiinu aad igu soo gudbiseen aniguna codsigiina waan aqbalay ummadda Soomaaliyeed dhamaan waxaan u sheegayaa in ay soo wajaheen laba arimood oo ah arimo xasaasiya kuwaas oo ah walaalahayga Galmudug oo la joogo sanad guuradooda 14 Agoosto ay nooga hersan tahay maalmo qor walaalahayga reer Beerdhabo oo ayagana ah walaalo igu qaaliya walaalo igu qiimo badan walaalo aan marnaa aan huri karin walaalo aad u qalbi furan boqolkiiba boqol jecel walaalahood jecel dhalinta in ay mar walba kor ay u qaadaan waxaan leeyahay codsigiinu uu isoo gaaray boqolkiiba boqol waan arkay waa daawaday waa fiirsaday fariimihiini waan arkay codsiyadiini waan arkay sida la ajligeed waxa go'aansaday in aan soo saaro hees una soo saaro Beerdhaba heesti aan soo saarayay been idin sheegay heesta waxa iga baxday waqti iyo juhdi iga baxay juhdigii waqti ugu dambeyn way ii soo tagashay heesti in aan diyaariyo oo aan soo bandhigo heesti markii aan diyaariyay oo waqti iyo juhdiga ku bixiyay dhigooda ayagana reer Galmudug waxa ka diyaariyay ayagana sanad guuradooda hees ayaga ka hadlay sanad guuradooda juhdi waqtigan ku bixiyay ugu dambeynna heesti Galmudug waa aan diyaariyay counter attack markii la gaaray waqtigii iyo munaasabad ahaan markii la gaaray soo bandhigida heesaha labada heeso waxa qorsheeyay heesta Beerdhabo in aan soo saaro oo aan soo bandhigo dadkuna aan la qaybsado bulshada Soomaaliyeed walaaliga reer Beerdhabana respect iyo karaamad iyo xushmad aan u hayo aan u muujiyo dhul kasta Soomaali ay degto anoo socdaal waxaan leeyahay waxaan u hayaa xushmad iyo respect gaar reer Beerdhabo ay soo hiray reer Beerdhabo waxaan leeyahay wallahi been ma idin sheegay qalbiga iga horeysan qalbiga waxaan i dareensiisin sida aniga ay idinku weynaa sida aan idinku weynaa i dareensiisin macnaha hadaladiina sida uu soo gaaray dhawqiina sida uu soo gaarayo hadii telefoon naqan lahayd ee face to face ay noqon lahayd qaabka qoomaha iyo sharafta iyo ciisiga iyo karaamada mudan aad macnaha aad mar walba aad igu dhirigelinaysaan in aan soo saaro heestiina war maxaa ku heestaa heesteena socdaalow heesteena maxaa ku heestaa waa soo bandhigtay waa soo saartay TikTok ee wareegaysa magasta wareegaysa heesteena maxaa ku heestaa ugu dambeyn waxaan qiimeeyay oo aan fiiriyay aan socdaal ahaan xaaladda macnaha walaalaheena Galmudug waqtigoodii oo soo dhow فنان كنا معناه وحوليه شرف يقيمي كلام عزي وليه ما ها هذا فنان تاي ما انت شر لح سطوسيس سغالس انا سو بندغتو ما ها waxa fiican heesaha in ay ahaadaan kuwa xal leh dadkuna ay ahaadaan kuwa dhageysta mar walba laakiin heesaha day noqdaan kuwa yaacitaan ku socdo macnaha xawaarasta oo markaas daba joog deeyeen hadda wuxuu noqonaa xad ka bixin noqonaa macnaha okay sanad guuradii hadda Galmudug waxa ka dhimasay hadda qiyaasayo 3 tolmood ina hees
beedaba soo saaro haddana hees galmudug soo saaro ani ahaan macnaha waxay iga naqanayaan wixii macnaha wax oo iska daba keen macnaha oo juhdi waqti aan ku bixin habeen iyo maalin usoo jeedaa iska markaa samaynayo waa dareemi kartiin fanaankuna macnaha markii uu soo samaynayo hees juhdi u gelina okay haddii aan isla isbuucan 13 maalmood labaas ku keeno macnaha waa zaid waay marka walaalahay reer beedaba marka muhiimadiisa laga hadlaa muhiimadiisa warka in laga hadlaa fiican sax all right walaalahay reer beedaba waxa leeyahay waa idin barya wallahi billahi tala waa idin jeclahay rabbi ya iloog waa idin jeclahay 100% wallahi billahi talahi waa idin jeclahay wallahi waa idin jeclahay wallahi waa idin jeclahay waa idin barya codsi waay raari naqda waa ballan heestiina waa soo saaraa laakiin waxaan hormarina heestan galmudug aan hormarina laakiin wallahi billahi talahi reebeedabo sida u jeclaha oo u jeclaha oo xushmay oo qiimo oo krime war aan cunug saqiir ah beedaba tagaaday asa madax leeyahay kor lee qaadaaday waxay ahayd 2000 iyo koodi meel aseedaday kor lee qaad kor waa adiga waxa leeyahay hayay hal maal iyo hal cabo ay korkooda maamo reebeedaba korkooda ugu heesmaalin iyo habeen korkaad ugu heys ana ma joqo ana waxaan gartaa waa may waa cunug saqiir ah cunug saqiir waa liiga sheekay way ii sheekaysa marka reebeed xushmad daasa waa respectaysa oo haya waxa ii soo hore la yiri galmudug ay soo hore wallahi billahi talaha ya ku dhaartay reer galmudug waxa tihiin dad aan igu qaaliye respect iyo sharaf iyo cizi karaami ugu leh waxaan ah fanaan Soomaaliyeed ka soo dareemay mar walbo codsigiyada iyo macnaha qiimaha aad u yeelaysaan mar walba iyo sida ay u garab taagantihiin waxaan idin leeyahay waa idin jeclahay waan idin jeclahay 100% jacayl ani idin qabo darteeda neesta u diyaariyay juudi aan idin kugu bixiyay markaan juudi waqtiga ku bixinayay isma leen galmudug lacag ka qaado isma leen galmudug ana sabaati ka diyaarso laakiin jacayl ani ku idin qabo waa hadaa dhaho waa kismaayo waa jeclahay hadaa dhaho beedaba waa jeclahay hadaa dhaho garow waa jeclahay hadaa dhaho boos waa jeclahay ma fanaanku meel kasoo jecel yahay macnaha xitaa shalay u dhaay garow jecel u dhaay shalay u dhaay xitaa man intuu jecel yahay macnaheedu ma aha inaan macnaha meel gooni jeclahay laakiin والله بالله تلا دول Soomaali ee degto dhan waa jeclaa 100% ballan iyo ahadin waxa ku qaado dhul kasta oo Soomaali ee degto in aan hees u soo qaado heestaasoo ayaga sharafkooda sumcaddooda kor u qaadayso waa ballantaas buuga la igu daray hore la igu sheegay okay reer galmudug waxaan idin leeyahay waan idin jeclaa 100% waxa tiin dad igu qaaliya dad igu qalbi furan qaasatan reer galmudug waxaan leeyahay waxa tihiin dad anigu hadii la xisaabayo macnaha dadku diiwaanada buwaagta macnaha dad waxa jiraan qaarkood macnaha gala jiraan sax khaasatan idinku ahaan ani ahaan waxay ugu jirtiin bowga taariikhda waxaynu nahay dad mar walba Soomaali iskaga dhow waqtigu aad u culus yahay hadda ka soo qabo matalan caawa waa farxad waxa la qaaday koobkii horseed waa naadiga aniga ana qiimi iyo sharafkii ciziga karaamada aan u hayay waa horseed waa naadi Soomaali hortooda in hor istaagaan dhahay wuxuu sameeynaa hees baa sameeynaa hadii koobka ay qaadaan waa bal fiiri bal waqtiga cariirigiisa bal fiiri ayadoo galmudug ayuu beedabo wixii ma ay wada joogan hadan waa kan waa dadkii aan ka dhashay oo qiimihi sharka ciidiga karaamada ugu lahay oo ay macaan familkii aan taageeray koobkoodii hadan la qaaday awalan markuu ugu horeyso waxaan leeyahay hambalyo horseed idin ilaabin waan idin maqanahay heesiiniina waa diyaar dabkay soo saaran tahay laakiin xoogaha yar waxa jira culays iyo waxa jira waxyaabo adiga waa dareemi kartaa ma okay laakiin waa idin baryaa ii dulqaata oo Soomaaliyeed waxaan leeyahay ortoro waxa maanta waxa suurtagal inaan mar aan iscii waayay waxyaabo in iska dhaxyaacin waxaan idin leeyahay hadaa hadal qalad afkiga ka aragtay waa ku baryaa codsi waa raali noqo waa idin baryaa Soomaaliyeed waa idin jeclaa 100% idinka idin noola idinka idin jooga